ardaya iftiinka ana barna oo akhriskii aqoonta aanu qaadano ardaya iftiinka. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. asxaabay kusoo dhawaada casharkii labaad oo aynu ku eegayno su'aalaha iyo jawaabaha loogu isticmaalka badan yahay ee luqadda Englishka. casharkii hore oo aad isla channelka ka heli karto waxa uu inoogu joogay su'aasha shanaad, kana waxaynu ka bilaabaynaa su'aasha lixaad. What's the weather like? cimiladu waa sidee? How's the weather? cimiladu waa sidee? intaan oo jawaabood ayaa midkii aad doonto ka bixin doontaa ama ka bixin kartaa. jawaabuhuna waa isku, su'aashuna waa isku mid oo what's the weather like iyo how is the weather like, cimiladu waa sidee? Hot and humid waa kulayl iyo hur. Hot kulayl and humid iyo hur. Hot and humid kulayl iyo hur. It is pouring roob xoogan ayaa da'aya. It is pouring roob xoogan ayaa da'aya. Take an umbrella dallad qaado. markii uu roobka xoogan da'ayo ayaa waxaa la yiraahdaa pouring. A little chilly waa yara qabow. You might wanna bring a jacket waxaa laga yaabaa inaad jacket u baahato. A little chilly waa yara qabow. You might wanna bring a jacket waxaa laga yaabaa jacket inaad u baahato. wana waxaa laga soo gaabiyey wanti iyo to. Gorgeous aad ayay u qurux badan tahay. Gorgeous aad ayay u qurux badan tahay cimiladu macnaha. A perfect summer day waa maalin xagaaya oo aad u wanaagsan. A perfect summer day waa maalin xagaaya oo aad u wanaagsan. It is quite cold waa yara qabow. It is quite cold waa yara qabow. Make sure to bundle up inaad dhar culus oo dhaxanta ka celinaya xirato. Hubi make sure hubi to bundle up in dhar dhaxanta ka celinaya aad xirato ama qaadato. Question 7 waxay ku saabsan tahay waqtiga. What time is it? What time is it? ama do you have the time? saacad waa imisa way ama waqti waa imisa? saacad waa imisa saac? It is 10 o'clock waa 10kii oo buura. It is 10 o'clock waa 10kii oo buura. It is 4:30 waa 4 iyo bar. It is 4:30 waa 4 iyo bar. It is 11:45 waa 12 oo dhiman 15. quarter waa 15 daqiiqo. It is 11:45 waa 12 oo dhiman 15 daqiiqo ama rubac dadka qaar bas ay yaqaanaan. Let me check my phone aan telefoonkayga ka hubiyo. Let me check my phone aan telefoonkayga ka hubiyo. Sorry I don't know ma garanayo. Sorry waa ka xumahay iga raali noqo u dhiganta. I don't know ma garanayo. sideedaad ama question number 8 waxay ku saabsan tahay marka qofku uu doonayo inuu soo dukaamaysto ama uu wax soo gato. marka qofka jooga dukaankaas ama supermarketkaas ama meheradaas uu qofku doonayo inuu wax ka gato ayaa waxa uu weydiin karaa su'aalahan. waxa uu dhihi karaa can I help you ma ku caawin karaa? waxa u baahan tahay macnaha ka iibiya ama waxa u baahan tahay. ama wuxuu dhihi karaa do you need any help? wax caawimo ma u baahan tahay? Can I help you ma ku caawin karaa? Do you need ma u baahan tahay any help? wax caawimaad ma u baahan tahay? intaan oo jawaabood ayuu qofku wax gadanayaa marka ka bixin karaa midii uu doono. waxa uu dhihi karaa no thanks ma waa mahadsan tahay. I'm just browsing waan eegaya bis oo kaliya waan fiirfiirinaya. no maya thanks waa mahadsan tahay. I'm just browsing waan eegaya. ama wuxuu dhihi karaa yes do you have this in a large size? kan ma haysaa number weyn ama size weyn? Do you have ma haysaa this? kan ma haysaa in a large size? size weyn ma haysaa ama number weyn? Yes ha where are the try on? ama wuxuu dhihi karaa yes ha where are the try on? aawo qolkii isku jimeynta, qolkii dharka la isku jimeynaya inuu kula egyan kale waxaa la try on ama fitting rooms. Where are the try on rooms or fitting rooms? aawo qolalkii isku jimeynta oo dharka inuu kula egyan kale la isku fiirinayo. yes la mid ah. Can you tell me how much this is? ma sheegi kartaa kan qiimihiisa inta uu yahay? Can you tell me ma sheegi kartaa how much this is? kan waa imisa? ha I'm looking for waxaan raadinayaa something wax under $30 oo ka hooseeya $30. ha I'm looking for waxaan raadinayaa something wax
under $30 oo ka hooseeya $30. sagaalaad ama question number 9 waxay ku saabsan tahay salaanta. How is it going? waxay la mid tahay how are you? sidee tahay? Great, aad baan u wanaagsanahay. Great, aad baan u wanaagsanahay. Couldn't be better, wax ka wanaagsan ma jiraan. macnaha xaaladdu waa excellent, way isku toosantaa. ama waxaad dhihi kartaa fine, waan fiicanahay. How are things with you? adigu sidee tahay? How are things with you? adigu sidee tahay? ama waxaad dhihi kartaa not bad, ma xuma, xaaladdu waa okay. ama waxaad dhihi kartaa I can't complain, wax dhib ma sheegan karo, macnaha waa okay xaaladdu. I can't complain, wax dhib ah ama cabasha ma qabo ama ma sheegan karo. Do you really wanna know? dhab ahaantii ma doonaysaa inaad ogaato? Do you really wanna know? dhab ahaantii ma doonaysaa inaad ogaato? Wanna waxaa laga soo gaabiyey want iyo to. waxay la mid tahay su-aashaana inta badan how's it going marka qofka la weydiinayo salaantaas waxaa laga rajeynayaa in wax positive ama wanaagsan uu ku jawaabo. marka qofka hadduu yiraahdo do you really wanna know, dhab ahaantii ma doonaysaa inaad ogaato, xaalad aan fiicnayn ayuu ku sugan yahay. marka ma rabtaa inaan kuu sheego xaaladeedu sida ay tahay, sidaas ayay ka dhigantay. How are you feeling? sidee dareemaysaa? How are you feeling? sidee dareemaysaa? intaan jawaabood ayaa marka ku habboon su-aashaas oo laga bixiyaa. Great, aad baan u wanaagsanahay. Never better, wax ka wanaagsan weligeed ma jiraanba, macnaha waan wanaagsanahay, wax ka wanaagsan ma jiraan. I am all right, okay ayaan ahay. I am all right, okay ayaan ahay. Like I need a vacation, waxaan dareemayaa sida inaan u baahanahay oo kale fasax. Like I need, waxaan dareemayaa like waa sidii I need inaan u baahanahay oo kale a vacation, fasax. inaan fasax u baahanahay oo kale camal ayaan dareemayaa. A little depressed, waan yara niyad jabsanahay. A little depressed, waan yara niyad jabsanahay. Really awful, dhab ahaantii aad ayay u xun tahay. xaaladda aan dareemayo ma fiicna macnaha. Really awful, dhab ahaantii aad ayay u xun tahay. intaas ayuu ku egyahay qaybtii labaad ee casharkii imtixaanaha ahaa ama casharadii imtixaanaha ahaa aynu ku soo qaadanaynay su'aalaha iyo jawaabaha ugu muhiimsan ama loogu isticmaalka badan yahay. la soco qaybaha xiga, like iyo subscribe-na ha ka tagin.